السلام عليكم كسو دواada shirkadda Soomar maanta waxaan isla eegi doonaa hadii eebayd muqaabka aad lacagta u bixin kartid xilliyada aad adigu wax iibsanaysid marka ugu horeysa waxa soo galaysaa abka Soomar kadib waxaad arkaysaa magaalooyin badan oo istooro shirkadda Soomar ay leedahay ku yeelan tusaale hadda maanta waxaan baraabaynayaa magaalada Muqdisho iyo qaabka aan wax u iibsanayo ayaa rabaa tusaale inaan ku bixiyo Muqdisho ayaan ku dhufanayaa markii aan abka gudaha u soo galo kadib waxaan iibsanayaa tusaale saacadan oo kale ayaan iibsanayaa gudaha markaan u galo oo detailska gudaha ku yaala iyo faahfaahinta gudaha ku taala iyo qiimaha markaan ku qanco waxaan ku dhufanayaa batoonka iibso ama buy ay ku qoran tahay marka batoonka ku soo dhufto gudaha ayaan u galayaa gudahana waxaan samaynayaa inaan telephone numberkayga aan geliyo marka shirkado tiro badan oo mobile money bixiya ayaad isticmaali kartaa shirkadooda tusaale sida shirkadda Hormuud Golis Somnet iyo waliba shirkadda Telesom marka magaalada Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya marka joogtid oo kale 6-8 ayaad isticmaalaysaa marka shirkadda Somnet isticmaalaysaa halkaas ayaad ka bilaabaysaa markii aad Hormuud isticmaalaysidna 6 ayaad ka bilaabaysaa ama 5 ama 8 furaad wuxuu yahay sii gelin doona tusaale markii aad Puntland tagtid oo Golis isticmaalaysid waxaad gelin doontaa 9 ayaad isticmaalaysaa oo numberkaaga eber ma ka hormarinaysid sidoo kale Telesom iyo Somaliland markii la tagana waxaad isticmaalaysaa 6 ayaad isticmaalaysaa oo eberto aad ka tagaysaa marka sida ayaad shirkadaha kala duwan u isticmaali kartaa markii numberkayga aan halkan geliyo tusaale aniga Muqdisho ayaan joogaa 615 ayaan gelinayaa numberkayga ayaan dhameystirayaa kadibna waxaan sameynayaa markaan buttonka sii riixo waxa ii soo baxaysa in aan telefoonka numberkayga passwordka aan geliyo automatically numberka passwordkayga markaan geliyo waxa iga jarmaysa lacagta waxaana ii soo dhacaya message ama fariin sheegaysa in lacagta ay iga gooday oo Soomar ay ku soo dirayso wixii faahfaahin inta dheeriya saaxiibayaal waxaad booqan kartaan xarumaheena kala duwan ee nu kuleynahay magaalooyinka Muqdisho Boosaaso iyo Hargeysa magaalada Muqdisho tusaale waxaad booqan kartaa xarunteena ku taala Trebiana magaalada Hargeysa waxaad tagi kartaa xarunteena ku taala ka soo horjeedka baar Hargeysa wadada Indhabirta sidoo kale magaalada Boosaaso waxaad booqan kartaa xarunteena ku taala aaga dawladda hoose ee degmada Boosaaso